بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kasta joogtaan weli waxaan ku guda jirnaa wararkii iyo dhacdooyinkiisa soo tarayay ee ka imaanaya Syria tan iyo markii saaka si rasmi ah xukunka looga riday ayna dhacday dowladii nidaamka Bashar al-Assad kadib markii caasimadda Dimashq ay si rasmi ah mucaaradka ula wareegeen. intaan ku guda jirno tabintan ama warbixintan waxaad heli doontaa macluumaadkii ugu dambeeyay falanqeyn iyo dhacdooyinkii ilaa hadda laga soo warinayo caasimadda Dimashq iyo guud ahaan dalka Syria. sidoo kale waxaad warbixintan kugu siin doonaa faahfaahinta sidee Syria uga badbaadi kartaa xaaladii ay mareen Yemen, Liibiya iyo dalkeena Soomaaliyaba. dhacdo kasta oo soo kordha iyo macluumaad dheeraadaba isla saacadda ay soo baxayaanba waxaad ka heli doontaan boggan ama bartan YouTube ee Imaan Jaamac. dhankayga waa inaan macluumaadkii ugu dambeeyay falanqeyn iyo dhacdooyinka isla saacadda idin soo gaarsiiyo halka dhankiinuna ay tahay inaad la wadaagtaan asxaabtiina kusoo birtaan channelkan waad ka heli doontaa dhacdooyinkii wararka ugu dambeeyay caalamka. xilligaana waxaan diiradda saarnaa arrimaha Syria ka dhacaya. sidoo kalena falcelintiina inaad like iyo share basisaan waxay qayb ka qaadanaysaa koritaanka boggan taasoo rajeynaya inaad samayn doontaan. mar kalese soo dhawaada aan ku hareeyay maxaa saaka ka dhacay Dimashq sideese ugu suuro gashay mucaaradku inay si fudud oo aan dhiig ku daadan dagaalna ku dhicin xabadna la ridin inay kula wareegaan magaaladii caasimadda Syria ahayd Dimashq oo muddo 53 sano qoyska reer Assad ay isku bedelayeen. wax walba si lama filaana ayay uga soconayeen Syria balse waxaan ku siinayaa ilaa hadda macluumaadka iyo xogaha laga helay sida fudud ee gacantooda ugu dhacday mucaaradka caasimadda Dimashq. ugu horeyntii waxaan ku xaqiijinay in Dimashq ay si iskeeda gacanta mucaaradka uga soo dhacday iyadoo aanan magaalada la gelin xoogaga mucaaradka Syria iyo hubkoodaba kadib markii madaxda militariga iyo sirdoonka nidaamka Bashar al-Assad ay iyagu tuureen nidaamkaas. Sawta al-Asima shabakada la yiraahdo oo ila sirdoon xiganaysa ayaa ku warantay. warbixintan ay shabakadan soo bandhigtay waxa lagu cadeeyay inuu dhacay heshiis ku dhamaaday in Dimashq la dhiibo dagaal la'aan iyadoo la tixgelinayo in dhammaan wada shaqeynta ka dhex jirta nidaamka amniga iyo militariga ay hoos yimaadaan waaxda howlgallada militariga ee dhaqdhaqaaqa mucaaradka Syria oo ay hogaaminayso kooxda Hayat Tahrir al-Sham iyo hogaamiyaheeda Abu Muhammad al-Jawlani kuwaasoo waxaa la yiri si buuxda mas'uul uga noqonaya soo saarista war-saxaafadeedyada iyo dhammaan hadallada la xiriira duulaankii iyo kacdoonkii mucaaradku hogaaminayay. xabsiga dhexe ee Sadneya oo loo yaqaano kawaanka dadka sabab la xiriirtay in Assad uu maalin kasta xabsigan ku daldali jiray dad ka badan 100 ruux iyadoo warbixinadii ugu dambeeyay ay sheegeen sanadii ugu dambeeyay ama intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2015 13 oo qof oo reer Syria in xabsigan lagu daldalay kuwaasoo ujeedka loo daldalay ahayd inay qayb ka ahaayeen isku soo baxyadii kacdoonkii laga soo horjeeday nidaamka reer Assad. intaa waxa dheer maanta waxa la soo sidaayay dhammaanba dadkii xabsigan ku xirnaa. tani waa noocawdii ugu horeysay iyo warankii laabta uga tagnaa qoysaska reer Syria ee hal mar ay mucaaradku ku guuleysteen saakay inay laabtooda ka saaraan sabab la xiriirta in halkan kumanaan qof ay ku xirnaayeen kuwaas oo qaarkood muuqaal la soo bandhigay laga arkay inay xataa xasuustii ka luntay sida loo ciqaabay loo jirdilayay loo xanuujinayay ilaa indhahooda ay ku arki jireen boqolaal qof oo ay garanayaan oo hortooda lagu daldalayo. tani waxay keentay in maskaxdooda ay lunto sida laga arkay muuqaalo balse dadka reer Syria waxay u noqotay sideynta maxaabiistii ku xiran xabsigan sita magaca kawaankii dadka. waxaana la sheegay in aanan wax dagaalaysan mucaaradku xabsigaasi ku qabsan taa beddelkeedana maxaabiista waxaa lagu sii daayay baaliye si lamida sida lagu sii daayay maxaabiistii ku xiran xabsiyadii qaabuun iyo xabsiga dhexe Adra kadib heshiis la sheegay in mucaaradka iyo ciidankii nidaamka Bashar al-Assad ee xabsiyada haystay ay wada gaareen. maanta waxay u ahayd dadka reer Syria iyo Dimashqba inay u soo baxday qorax uga duwan waxay arkayeen 53 sano ugu dambeysay sabab la xiriirta in meesha laga saaray nidaamkii cabsida barakicinta dilka xadgudubada iyo dhibaato aadana oo aan hore loo diiwaangelin ku kici jiray oo ay kala kulmi jireen. Assad ayaana si halhalay la xalay uga baxay magaalada Dimashq iyadoo la arkayay ka hor inta uusan ka bixin Dimashq in dhowr diyaaradood oo nooca qumaatiga u kacay buuxiyeen hawada magaalada Dimashq. waxa bixitaankooda hawada caasimadda ku xigtay in diyaarad ay leedahay Iran ay ka soo degtay garoonka magaalada Hamimam ee ku yaala dhinaca xeebaha Syria oo ah halka ay ku yaalaan saldhigyada Ruushka. sidoo kale diyaarad kale ayaa la arkay iyadana inay ka soo degtay Dimashq kuna sii jeeday goob aan la aqoonsan ilaa hadda. Bashar al-Assad lama oga ilaa hadda goobtuu ka degay sidoo kalena macda diyaaradu raacay iyadoo shabakadaha qaar iyo baraha bulshada lagu baahiyay in diyaaradii uu la socday Assad in la riday
base ma jirto xaqiijin rasmi ah sidoo kalena isaguna ilaa hadda wax wara kama soo bixin. Caasimadda Dimashq way degan tahay kaliya waxaa ka soconaya baaliyay dabaaldegyo iyo rasaas ay ridayaan walow mucaaradka hogaankooda sare uu mamnuucay in wax rasaas la rido. ilaa hadda waxa Dimashq ka dhacayana waa isu duwidda heshiis iyo afgambigii ku dhamaaday bixitaanka Asad oo ay wada gaareen mucaaradka iyo xubno ka tirsan saraakiisha sare ee militariga iyo sirdoonka. Howlgalka mucaaradkuna wuxuu ahaa mid qaabaysan waxayna heshiisyo la galeen sidoo kalena ay wada xaajoodyo la sameeyeen xubno muhiim u ahaa nidaamka Asad kuwaasoo sabab u noqday in la burburiyo nidaamyadii difaaca ilaa caasimadda Dimashq ay soo galeen mucaaradku iyagoo aan wax bada ama dhiiga daadin. qaar badan oo kamid ah saraakiishii taliska nidaamka Asad hadda waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin dhismaha shaqaalaha guud iyagoo sugaya inay arkaan waxa dhici doona wajiga soo socda kadib markii la sheegay inay jiraan wadamo dhowr ah oo damaanad qaaday heshiiska ay saraakiishan iyo dhaqaaqa mucaaradka galeen. dabcan Turkiga ayaa loo maleynaya inuu doorkaas ciyaaray oo damaanad siiyay saraakiishan la shaqeynayay mucaaradka. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Syria ee nidaamka Bashar al-Assad oo isagu maanta ku dhawaaqay inuusan ka bixin Dimashq waa Mohammed Ghazi al-Jalili ayaa ka tagay gurigiisa waxaana la sheegay inuu si rasmi ah awood ugu wareejin doono waaxda howlgallada militariga ee mucaaradka Syria oo ay hogaaminayso kooxda Hayat Tahrir al-Sham kuwaasoo la sheegay inay xafiis ka furteen hotel ku yaala caasimadda Dimashq. adeegyadii dowladda ayaa soconaya iyagoo markii ay gaareen Dimashq sheegay in awaamirta adeega bulshada uu bixinayo ra'iisul wasaarihii nidaamka Asad ee diiday isagoo inuu baxo sheegayna in uu doonayo faylasha dowladda gacanta ku hayay iyo adeegii dowladeedba inuu ku wareejin doono dhaqaaqa mucaaradka. isagoo xaguriisa ka soo baxay ayaa la arkay sida muuqaalkan aad ka arkaysaan waxaana la sheegay inuu ku sii jeedo halka uu ku yaala xafiiska howlgallada military ee Dimashq ay ku leeyihiin dhaqaaqyada mucaaradka. haddii Dimashq lagu guuleystay weli fari kama qodna xaaladda Syria. mucaaradka Syria waxay sheegeen inay ku sii siqayaan galbeedka magaalada Deir az-Zar ee bariga xigta kadib warbixin ay soo saareen mucaaradka ay ku sheegeen inay hadda ku sugan yihiin baadiyaha galbeedka magaaladaas istiraatiijiga ah. magaaladan ayaa hadda waxaa gacanta ku haya Kurdiyiinta oo ay maamulaan xoogagga dimuqraadiga Syria ee Mareykanku taageeray loo soo gaabiyay magacooda SDF kadib markii ciidamada nidaamka Asad ay isaga bixin horaantii toddobaadkan. qaybta bariga Syria ka tirsan waxaa sidoo kale ku sugan ilaa 900 oo askari oo Mareykan ah. webiga Furaad ayaa astaan u ah sohdinta aagaga ay doonayso inay SDF ka howlgasho. macadda mucaaradka habkii kula wareegi doonaan magaaladan iyo halkay ku jihaysan yihiin inay tahay webiga Furaad oo meel istiraatiiji aadna muhiim ah. haddii ay ku adkaystaan SDF waxay la kulmi karaan markaas iskorimaad dhab ah oo ay la galaan mucaaradka ay hogaaminayso kooxda Hayat Tahrir al-Sham ama dhaqaaqa kacdoonka carabtu ay bilaabeen. hadda mucaaradka hubeysan ee Syria waxay dhameystireen qaybo fudud oo howlgalka ah laakiin howsha ugu adag waa mid hadda harsan. ka xoreynta magaalooyinka Syria dhaqaaqa kooxda Kurdida ee SDF iyo in ay mucaaradku gacantooda ku soo celiyeen 80% shidaalkii dowladda Syria oo ururkaasi uu goostay. xoreynta magaalooyinka xeebta Syria ku yaala ayaa sidoo kale ah waxyaabaha hadda mucaaradka u dhiman. arrinta kale muhiimadda leh waa in Israel laga hor istaaga inay ka faa'iideysato mashquulka mucaaradka iyo balarinta dhulkeeda iyadoo doonaysa inay dhul soo gasho Syria. mar horena taas ayaa la arkay waxayna ka soo gudbeen dhinaca buuraha Golan iyagoo soo dhexgalay deegaano ka tirsan dhulka Syria. arrinta kale muhiimadda leh waa in la sugo amniga Syria kadib waa inay u gudbaan marxaladda saddexaad iyagoo soo dhisay dowlad ku meel gaar ah oo la isku raacsan yahay iyo raadinta dib u soo celinta reer Syria ee ku barakacay gudaha iyo dibadda Syria si ay u dhistaan Syria madax bannaan. ugu dambeyntii in laga saaro dhammaan ciidamada shisheeye ee ku sugan dhulka Syria lana sameeyo ciidan qaran oo ilaaliyaha dalka iyo ilaalinta xuduudihiisa. haddii arrimahaas oo dhan hirgalaan markaasi Syria waxay xaqiijisay inay ka soo baxday caqabadihii burburiyay ilaa hadda ay ka soo kaban la'yihiin dalalka Yemen iyo si la mid ah qaabkii Liibiya iyo Soomaaliya. mucaaradku hadda wax walba waxay u wadaan si nidaamsan balse waxaa cad inay dhiman yihiin laba marxaladood oo aad u culculus kuwaasoo uga baahan howlqabad. hadda wax walba waxay ku xiran yihiin reer Syria inay dhexdooda heshiiyaan ismaamulaan oo ay ka fogaadaan inay ku dhacaan waxay la kulmeen Yemen iyo Liibiya iyo xataa dalkeena Soomaaliya. Turkiga oo lagu sheegay inuu yahay awoodda ay ku tiirsan yihiin mucaaradka ay hogaaminayso kooxda Hayat Tahrir al-Sham ayaa dhankiisa wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo wax kasta oo suuragal ah si loo gaaro yoolalkaasi in la dhiso hay'ado dowladda oo Syria mar kale si loo ilaaliyo dhulka Syria ee kala qaybsan. sababta ah ka hor inta aysan tan dan u noqon Syriyaanka ugu horeyntii waxay dantiisa tahay in Syria dowlad adag iyo nidaam midaysan in laga hirgeliyo Turkiga laftigiisa kaas oo ay ka soo fuqayso
walaaciisa dhinaca amniga ku qabo kala qaybsanaanta Syria. Arinta koowaad ee hadda uga baahan mucaaradka inay aadaan waa inay xoreeyaan deegaanada ay gacanta ku hayaan SDF si ay uga fogeeyaan khatar dhici kara. Halkay aadi lahayn deegaanada xeebta ee Calaawiyiinta iyo Ruushka ay ku sugan yihiin waxa mudnaan kale si ay u xoojiyaan nidaamkooda inay marka hore la wareegaan deegaanada ay Kurdidu haysato, gaar ahaan deegaanada iyo magaalooyinka Manjib, Anuunki, Al-Qamishli, Deir Assur, Raqqa iyo Al-Bukmal. Haddaba aan ku siiyo xaqiiqooyinkan ku socda kooxda ciidanka dimuqraadiga isku magacaabay SDF ee Mareykanku uu hirgeliyo. Hadda waqtigii tijaabada dhabta ah ay galayaan mucaaradka iyo guud ahaanba dhulka Syria ee laga xoreeyay 53 sano kadib nidaamkii reer Asad. SDF ma aqbali doontaa in ay hub ka dhigto oo ay ku biirto mucaaradka hubeysan? Waxaan ka hadlayaa kooxda Kurdida ee haysata 80% shidaalkii iyo kheyraadkii dhulka Syria oo lahaa ee bariga Syria. Arinta kale ee muhiimka waa in la dhiso Syria madax bannaan. Mise Syria waxay dhexda u gali doontaa mashruuca kala qaybinta oo tan hadda halkan keentay ah. Hawsha mucaaradka ma aha mid fudud. Dhinaca kale waa inay xoreeyaan dhammaan magaalooyinka ay gacanta ku hayaan SDF oo ay ku qasbaan inay ururkaas ay aqbalaan ku biiritaanka dowladda cusub ee Syria. Si lamida waxa aad muhiim ugu ah isha ku hayaan hamiga Israa'iil oo loo baahan yahay inay ka dhigaan qodob aasaasi u ah xaaladooda. Dabcan waa inaan u rajaynaa dadka Syria inay ka soo baxaan marxaladan xasaasiga iyagoo aan wax dhiba kala kulmin. Laakiin waa inaanan uga tagin warka intaan, sidoo kalena waa inaan dib u dhignaa farxadeena oo aan sugnaa sida marxaladahan ay noqon karaan, maalmuhuna ay isku bedeli karaan gudaha Syria. Sababtuna waa inaan markale kugu celiyo cadaadiska ugu weyn ee hadda Syria xoog leh caqabad ku noqon kara waa kooxaha Kurdiyiinta, gaar ahaan kooxda ciidanka dimuqraadiga isku magacaawda ee Mareykanku taageero SDF. Kooxdan oo haysata 80% kheyraadkii Syria, gaar ahaan shidaalka. Mar walbana waxay sameeyaan dhul balaarsi iyagoo ku murmursiyoonaya inay la dagaalamayaan ISIS ama Daesh. Waxayna taas ku gaareen ciidanka Kurdiyiintu inay 80% shidaalkii iyo kheyraadkii ugu muhiimsanaa iyo gobolkii kheyraadka ee Syria inay gacanta ku dhigaan. Hadda SDF ama kooxda ciidanka dimuqraadiga ee Kurdidu waxay bilaabeen inay gacanta ku dhigaan oo ay xakameeyaan magaalooyinka Al-Qasaf, Qamishli iyo Manjab. Hadda sidoo kale waxay gacanta ku hayaan Raqqa, Al-Bukmal iyo Deir Assur oo halka ay mucaaradku hadda ku sii socdaan. Mucaaradka Syria ayaa laga yaabaa inay ku qasbaan SDF inay ku wareejiyaan magaalooyinka ay maamulaan. Laakiin haddii ay tan dhici weydo oo ay diidaan, markaas mucaaradku waxay go'aansan doonaan inay hab xooga ku raadiyaan. Markaa ma u malaynaysaa heerka uu Mareykanku soo faragelin doono xaaladan, xoogaga mucaaradkana uu u duqeyn doono si adag? Waxaan rajeynayaa in midani ay si nabada ku dhammaato, dadka reer Syriana waaga u baryay u noqdo waa naruuro nabad, xorriyad iyo sharafba u horseeda. Haddoo eebidmo warbixinadeena kale ayaad ku heli doontaan dhammaan macluumaadyada is soo taraya ee Syria iyo dhacdooyinka dunida gees kasta oo ay ka imaanayaan. Hadda diiraddu waxay noo saaran tahay Syria oo halka ay isbedelada degdeg leh ay ka dhacayaan. Intaas ayaan idinkaga tegayaa. Fikradaha ka hesheen warbixintaanba qaybta falcelinta inoogu reeb. Intaynu mar kale ku kulmayno daqiiqadaha xiga hadduu eebidmo macluumaadka soo kordhana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabad qab, caafimaad qab iyo amaano Allah.